kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Cadaada Media Group qodobada wararka waxa ugu waaweyn dib u dhac mar kale ku yimid xulista baarlamaanka Galmudug Mareykanka oo la sheegay inuu ku fashilmay dagaalka Al-Shabaab ee Soomaaliya wasiirka gaadiidka cirka ee dhulka oo shirkada ajnabiga u fasaxay arrin dhibaato ku ah Soomaalida ciidamada Somaliland oo irdaha iskugu dhuftay hotel laga taagay calanka Soomaaliya dagaal mar kale dib uga qarxay deegaano ka tirsan bariga gobolka Mudug iyo qodobo kale oo daahsoon faahfaahintooda u diyaar garooba mar kale kulanti habboon daawadayaal Cadaada Media Group ayaad naga daawanaysaan qodobadii aad maqasheen faahfaahintooda ayaan ku bilaabayaa Dhuusamareeb oo caasimada dowlad goboleedka Galmudug wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in mar kale uu dib u dhac ku yimid xulista xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug qorsho wuxuu ahaa 9kii bishan oo maanta ku beegneed in la shaaciyo liiska xubnaha cusub ee baarlamaanka maamulkaasi arrintan ayaa dib u dhigaysa doorashada Galmudug oo horay guddiga farsamadu ay soo saareen jadwalka waxaana la filayaa in maanta la shaaciyo balse dib ay u dhacda arrintaasi taasi oo sababaysa in dib u dhac ku yimaado doorashada madaxweynaha iyo tan gudoomiyaha baarlamaanka wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qaar ka mid ah xubnaha guddiga farsamada looga yeeray magaalada Muqdisho isla markaasna la hakiyay howlaha doorashada Galmudug lama oga sababta ka dambaysa arrintan balse waxa wali jira isfahan waa u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka sare ee Ahlusunna wal Jamaaca xaaladda ayaa u muuqata mid cirka isku sii shareeraysa maadaama wali aan xal laga gaarin arrinta dhismaha Galmudug oo mid ahna lagu heshiilayahay sida uu shaaciyay guddiga farsamada guddiga farsamada maamul dhisida Galmudug doorashada guddoonka ay baarlamaanka ayaa lagu waday inay dhacdo 13 ilaa 16 bishan aynu ku guda jirno halka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisana sidoo qorshuha la dooran lahaa 17 bisha December waa bishan December sanadkan 2019 waxaanan muuqanin dhaqdhaqaaq arrintaasi la xiriirta maadaama arrintii waa jadwalkii guddigu ay soo saareen dhawaantan uusan dhaqan gelinin Galmudug tan iyo aas-aaskeedii waxay lugaha kula jirtay jahawareer khilaaf siyaasadeed kaasi oo cuuryaamiyey howlihii maamulka isla markaasna horumaradii laga sugayay aysan suuro gelinin khilaafkan ayaa sidoo kale sabab u noqday in Galmudug ay noqoto maamulka ugu liita marka loo barbar dhigo maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira Mareykanka ayaa la sheegay inuu ku fashilmay dagaalka Al-Shabaab uu kula jiro ee ka socda gudaha Soomaaliya wargeyska The Nation Interest ee ka soo baxa Mareykanka ayaa daabacay maqaal dheer oo uu kaga waramayo sida siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ay ugu guuldareysatay la dagaalanka Al-Shabaab oo qayb ka mid ah ka dagaalama dalalka qaaradda Afrika wargeyska waxa uu soo qaatay muuqaal uu iska soo duubay bishii November ee sanadkan aynu ku guda jirno hogaamiyaha kooxdaasi oo warar hore oo soo baxay ay sheegayeen inuu dhintay balse muuqaalka ayaa ka turjumaya in awoodda kooxda ay weli baaqisi tahay kadib muuqaalkaasi Al-Shabaab ayaa qaaday weeraro dhowr ah oo qaarkood ka dhacay qaybo ka mid ah Somaliland oo aan horey looga barnin in Al-Shabaab ay weeraro ka geystaan siyaasiyiinta qaar ee wargeysku uu wareystay ayaa leh Al-Shabaab waxa ay si daahfuran canshuuraha kaga qaadaan ganacsatada kaliya maahan ganacsatada leh xarumaha gaarka loo leeyahay xitaa canshuuraha waxay ka qaadaan xubnaha ka tirsan dowladda Soomaaliya dhibaatada si baahaysa kaliya maahan musuqmaasuq ee waxaa jira siyaasad waxaga aan lahayn ayuu yiri Donald Yamamoto oo ah safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya maqalka wargeyska ayaa aad u dhaliilay istiraatiijiyadda safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay ku wajahayso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo si baahaysa quburada wargeysku uu wareystay sidoo kalena maqalka ku qoran ayaa sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay u hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay xoogga saartay dagaalka ka dhanka mucaaradka halka ay awoodda isku geyn lahayd dagaalka ka dhanka Al-Shabaab markii ugu horeysay tan iyo burburkii dowladda Mareykanka waxay dib u furtay safaaraddeeda Soomaaliya waxayna ahayd inay xoogga saarto la dagaalanka Al-Shabaab balse siyaasadda
arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa aad u liidata waxa ayna keentay inay sii kordhaan weerarada al-shabaab ayaa lagu yiri maqaalka uu daabacay wargeyska National Interest ee ka soo baxa dalka Mareykanka. waa nuucee sheekooyinka aad doonayso wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka sheekooyin ku xiiso geliya oo ku salaysan jacaylka iyo dhaqankeena Cadaada Media Group wuxuu warbixino iyo warar tayo leh mar walba iyo goor kasta waa Cadaada Media Group. ciidamada Somaliland ayaa la wareegay hotel laga taagay calanka Soomaaliya. wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegaya in ciidamada Somaliland ay xoog kula wareegeen hotel maanta laga furay magaaladaasi oo laga taagay calanka Soomaaliya inkastoo calamo kale ay weeliyeen. ciidamada ayaa markii ugu horeysay xoog ku galay hotelka xilli ay socotay xafladda furitaanka waxa ayna isla markiiba dajiyeen calanka Soomaaliya oo hotelka surnaa mid ka mid ah waxaa sidoo kale surnaa calanka Kenya oo isna ka mid ah calamada surnaa hotelka. wararka aynu helayno ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada Somaliland ay xabsiga u taxaabeen milkiilaha hotelka oo ku sugnaa furitaanka xafladda hotelka lagu furayay. waxaa sidoo kale ciidamadu ay xabsiga dhigeen wariyaal ka qayb galayay xafladda furitaanka hotelka iyagoo oo qayb ka ahaa soo tabiyaasha xafladdaasi. ciidamada booliiska Somaliland ayaa si adag uga biyadiiday calanka Soomaaliya ee laga suray hotelka cusub isla markaasna diiday in calanka laga suro hotelka. calamo kale oo ka mid yahay calanka Djibouti ayaa sidoo kale isna hotelka laga suray balse ma jirin in calamadaasi kale wax la dajiyay. gobolka Mudug barigiisa hadii aynu aadnana dagaal beeleed ayaa mar kale dib uga soo cusboonaaday deegaano ka tirsan bariga gobolka Mudug. dagaal beeleed u dhaxeeya beelo ku kala abtirsada Galmudug iyo Puntland ayaa mar kale dib uga qarxay deegaano u dhaxeeya Afbarwaaqo iyo Tawfiiq oo ka wada tirsan bariga gobolka Mudug. maleeshiyad hubaysan ayaa Khamiistii tagtay waxa ay ku dagaalameen deegaankaasi balse mar kale ayuu maanta dagaalku dib u qarxay. xiisadan waxay taagneed toddobaadkan oo idil waxaana arrintan jiray odayaal dhaqan iyo waxgarad isku hawlay sidii xal looga gaari lahaa inkastoo aan la kala qaadin dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay haddana mar kale ayay dib u dirireen. markana tirada ciidamada Ethiopia ee Soomaaliya ayaa shaaca laga qaaday. safiirka dawladda Ethiopia u fadhiya magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya Maleza Alem ayaa shaaca ka qaaday tirada ciidamadooda ee ka jooga Soomaaliya kana mid ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. safiirka oo waraysi siinaya wargeyska ka soo baxa dalkaasi ee lagu magacaabo The Star ayaa sheegay in ciidamada Ethiopia ee jooga gudaha Soomaaliya tiradoodu ay u dhaxayso 9,000 ilaa 15,000 oo askari kuwaasi oo dagaal kula jira al-shabaab. sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamadooda ay ka mid yihiin qaybaha saddexaad iyo afraad ee AMISOM kuwaasi oo ka kala howlgala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya gaar ahaan gobolada Bay, Bakool, Gado, Hiiraan iyo sidoo kale Galgaduud. waxa uu sidoo kale intaasi hadalkiisa ku daray in muhiimadda koobaad ay tahay sidii loo wiiqi lahaa awoodda al-shabaab oo khataro badan ku haya guud ahaan gobolka. waa sida uu hadalka u dhigay. danjiraha ayaa sheegay intii u dhaxaysay sanadihii 2013 ilaa 2017 in Ethiopia ay ka dhaceen 46 kiis oo la xiriira argagixisnimo iyadoo ay ku dhinteen 360 qof kuna dhaawacmeen 160 qof oo kale, halka Kenyana xilligaasi ay ka dhaceen 373 weerar oo la xiriira falal argagixisnimo ayna ku dhinteen 929 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 1,149 qof iyadoo sidoo kalena la afduubtay 666 qof. dowladda Kenya oo sidoo kale qayb ka ah dalalka al-shabaab la dagaalama ee jooga Soomaaliya
waxaa ciidamadeeda lagu qiyaasaa 2,500 ilaa 4,000 oo askari waxa ayna qaabilsan yihiin gobolada dhaca koonfurta Soomaaliya sida Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gado oo dhammaantood hoos taga maamul goboleedka Jubbaland. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan ay jiraan ciidamo Itoobiyaan ah oo qayb ka ah AMIS oo aan qayb ka ahayn AMISON oo jooga dalka kuwaasi oo sharci darro ku soo galay Soomaaliya. waxaa sidoo kale hadalkan imaanaya danjiraha xilli Itoobiya iyo Kenya ciidamadooda jooga gobolka Gado ay wadaan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda. warkii Cadaada Media Group ayaan jeclahay saaxiibayaal inaan inahaasi ku soo gabagabeeyo. fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar, ha ilaawin si lamida inaad gambaleelka ku dhufato si aad u hesho macluumaadkii u dambeeyay ee halkan aynu ku soo daabacno. tan iyo kulanti dambe saaxiibayaal, sidaas iyo nabadgelyo.